faraxsanahay inaan la arki karo Burhaan Cali Muuco oo ah taageeraha Chelsea. Waan faraxsanaanaynaa maxaa yeelay nolosha isku fahansanahay ciyaaro ma aha nolosha kaliya. Waa dhacdo naadir ku ah inaad ku aragto geega Soomaaliya laba lamaane oo aqalgalkooda soo xirtay fanaanadaha kooxaha ay kala taageeraan taa oo dadka badi ay ka yaabiyeen. Bal ka waran adigoo aqalgalaya oo ay maalintaada farxadda tahay haddana aad ku muujiso taageeramada xad-dhaafka aad u qabto kooxda Divosa oo tahay taasi waa mid cadeynaysa halka ay gaarsiisan tahay mabda'a taageernimadaada. Tani waa sheekada lamaanaha qarniga Xafso Cusmaan iyo Burhaan Cali Muuco kuwaasoo dhawaan ku aqalgali raba magaalada Muqdisho. Waan faraxsanaanaynaa maxaa yeelay nolosha isku fahansanahay ciyaaro ma aha nolosha kaliya. Kahor xafladda arooska waxay lamaanaha galaan sawiro hordhac ah taas oo Soomaalida sanadihii ugu dambeeyay caado u noqotay. balse tan dadka ka yaabisa waxay ahayd markay soo xirteen maaliyadaha kooxaha kala Arsenal iyo Chelsea kuwaasoo ay kala taageeraan lamaanahani. Marwo Xafso Cusmaan waa gabar taageerta kooxda kubadda cagta Arsenal taa muddo taageeraysay balse siigeedu uu taageero kooxda Chelsea ka oo muddo isagana u saaxiibtumay kooxda The Blues ee Chelsea. Waa mid aad u adag in lamaane ku nool hal guri haddana taal hal dhalo mararka qaarna ay dhacdo in ay ciyaaraha hal waqti soo galaan taas oo muran badan dhaliso. balse Marwo Xafso ayaa sheegtay in guriga kaliya laga daawo doono kooxda kubadda cagta Arsenal maadaama ay yihiin kuwa hogaaminaya horyaalka Premier League ee dalka England. Waa Xafso Cusmaan Ujeer aad ugu faraxsanahay inaan la arki karo Burhaan Cali Muuco oo ah taageeraha Chelsea. in aan nolosha la wadaagayn Chelsea taageero aniga ah taageero Arsenal ah. asaa isku daya inuu meelihiisa kale ka soo fiirsado. waan faraxsanaanaynaa maxaa yeelay nolosha isku fahansanahay ciyaaro ma aha nolosha kaliya. taageerida ay marwadeeda taageerto Arsenal anigana aan taageero Chelsea kuwaasoo aad u xifaalta markay timaado kubadda cagta balse taageernimada kooxaha waxa ka weyn jacaylkan uu qabo sida uu sheegay Burhaan Cali Muuco. Chelsea taageero inaan nolosha la wadaago qof Arsenal taageero kulay dadka qaar waxay isdhahaan Chelsea iyo Arsenal waa laba koox oo xifaaltanto aad isku nacab marka dhinaca loo fiiro haddii wax kasta waxa ka weyn jacaylka hadda sanadkooda lagu jiraa xal ciyaareed fiican ku jiraan waxa ku dhaw inay horyaalka Premier League ay ku guuleystaan aniga ahaan Arsenal aad u nacbana runta marka ka hadlo xitaa wiligeed funaandeed ma gashan maanta hadda waa kana Arsenal funaandeeda xirtay waliba hadda ku faanaya sababtu maxay tahay qofka aan jecelahay marwadeeda markaas sidoo kale ayaa Arsenal markaas sidoo kale taageero ah dad badan wax isweydiinayaan say ku heshiinaysiin haddii yani Arsenal iyo Chelsea isku soo aadaan kulanka London Derby horta wax kasta waa iska macquul haddii badiso waa u hambaliyeena laakiin hadda ka badiyo iyadoo inay xanaaqdo ma waa inay hambaliyeysaa marka dhinaca loo fiiro marka la aad ugu faraxsanahay horta aan taageero weyn Chelsea ahay iyadana Arsenal ay taageertaa laakiin wax walba waxa ka weyn marka loo eego nolosha waxaan iska keentay iyadoo Arsenal fans ah iyo aan Chelsea fans ah inaan nolosha wadaagno. baraha bulshada waxaa loo wareejinaya sabrada labada lamaane bulshada ayaana aragtiyo kala duwan ka qaba labada lamaane balse sida muuqata waa mid ugub ku ah geega Soomaaliya in lagu arko laba lamaane oo aqalgalaya haddana soo xirta fanaanadaha kooxaha ay kala taageeraan. Arsenal waa hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee dalka England taas oo sanadkan rabtay inay ku guuleysto horyaalka Premier League ee dalka England halka kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku jirto kaalimaha dhexe ee kala sareynta horyaalka Premier League ee dalka England. haddaba haddii aad daawato muuqaalka maxaa kaaga baxay qaybta hoos aragtidaada nala